dhashay dalka Sweden kuwaas oo isku dayay in ay si sharci darro ah ku soo galaan deegaankeena isla markaana ay ka sameeyaan filan sharci darro ah oo ay ku waxyeeleynayaan magaca iyo sumcadda deegaanka waxayna labadaasi nin ee u dhashay dalka Sweden ay kala ahaayeen Martin Fabio oo ay daadiisu ahayd 31 jir security numberkiisuna uu ahaa 19 xariijin 10 shaqadiisuna ay tahay suxufi iyo weliba saaxiibkii John Befferson oo ay daadiisu tahay 29 jir una dhashay dalka Sweden shaqadiisuna ay ahayd kameradeyste security numberkiisuna uu yahay 19 xariijin eber 3 iyada oo uu kameradeysta John Befferson uu waqti horena uu deegaanka si sharci darro ah wax uga duubay isaga oo la socday nin lagu magacaabo Jeffrey Gentleman waxayna labadani xubin oo ay horkacayeen xubno ka tirsan ururka UBO oo Martin iyo saaxiibkii John ka dhaadhiciyay fikir khaldan ay deegaanka soo gaadheen 1 bishii July goobta loo yaqaano Caleen haddaba halyeeyada ciidanka liyu booliska iyo hay'adaha sirdoonka oo la socday dhaqdhaqaaqa labadani nin oo ay jahwareeriyeen ururka UBO ayaa waxaa halkaasi gacanta lagu dhigay Martin iyo saaxiibkii John iyo weliba xubno ka tirsan ururka argagixisada ee UBO iyada oo halkaasna ciidanka halyeeyada liyu boolisku ay ku laayeen 15 xubnood oo ka tirsan argagixisada UBO sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay wallaga helaayo hadhow lagu xasuustaa sanadkii aynu ka soo gudubnay haddii aynu dib u jalcino dhinaca nabadgelyada iyo amniga waxaa xaflad xidhitaan loo sameeyey dacfadii shanaad ee ciidanka booliska gaarka ah taasoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin sare oo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida waxaana ka qabiilayaashan ka mid ah culimo diinka odayaal dhaqameedada mas'uuliyiinta gobolada qaarkood waxaana xafladan hadal yar oo gaaban ka soo jeediyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar waxaa halkan aan kala dardaarmayaa ciidamada dibcadda shanaad ee ku qalin jabiyay ee tababarkan marka waxaan u sheegaynaa isla markaana aan kula dardaarmaynaa kow in ujeedada loo abuuray ay tahay kaliya 8 qodob ee uu akhriyay halyeygii halkan ka soo jeediyay aqoon maqlaja ama go'aanka ay qaateen in ay tahay oo kaliya waxa aan kula dardaarmayno isla markaana loo dhisay looguna kalsoon yahay inay tahay 8 qodob ee halkan uu ka soo jeediyay halyeygii akhriya go'aanka dufcadda shanaad ee ciidanka booliska gaarka waxaan kula dardaarmaynaa inay 8 qodob iyo dhaartii ay dhaarteen ay ilaaliyaan isla markaana markasta ay xasuustaan kow xilliyada ay dagaalka ku jiraan xilliyada ayna ku jirin xilliga ay shacabka dhex joogaan intaba 8 qodob iyo dhaartii inay xasuustaan waa mid waajib ku ah waxaa waajib ku ah kow inay shacabkooda ilaaliyaan isla markaana ay noqdaan kabaha shacabka inay noqdaan kabihii shacabku ku socon lahaa iyo dharkii iyo maxaan ku dhahaa hoygii ay ka geli lahaayeen dhammaan dhibaatooyinka adduunka jirta sida jahliga gaajada nabadgelyo darrada rafaadka dhammaan in ay noqdaan jaakeedo bir ah oo shacabku gashado isla markaana wax kasta oo shacabka ku soo socdo kuwii isaga dhigi lahaa inay noqdaan taasna ay ku muujiyaan ciidankan booliska gaarka waa ciidan laga soo xulay dhalinyarada deegaanka Soomaalida kuwaasi oo dhamaantoodba ka kooban degmooyinka uu deegaanka Soomaalidu ka kooban yahay ciidankan booliska gaarka waxa ay qaateen tababar adag oo la xiriira tabta iyo heesha dagaalka ka hortagga iyo dabagalka cadawga fashilida sirta cadawga habka weerarka iyo difaaca cadawga waxaana intaasi u dheer barashada dastuurka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo kan dowladda deegaanka Soomaalida ciidankan booliska gaarka oo ah dhalinyaro waxa ay yihiin kuwo habeen iyo maalinba u taagan ilaalinta nabadgelyada deegaanka Soomaalida waxa ayna ciidankani adkaysi u leeyihiin
oo aanay damqin waxyaabaha ay ka midka yihiin gaajada, haraadka, qoraxda iyo qabowgu. waxayna ciidankani casharo lama ilaawaan u dhigeen kooxda nabadiidka ee UBO, kuwaasi oo ka dhammaystiray amaba ka tirtiray deegaanka Soomaalida. waxayna kooxda UBO ee nabadiidka ay waraabiyeen xabad qadhaadh ama xabad ka qadhaadh dacarta, isla markaasina waxa ay dhadhamiyeen oo ay ku rideen xabado iyaguna markaasi ka kulul dhamacda dabka. ciidanka booliska gaarka oo magaca alla ugu dhaartay inay difaacaan dalka, deegaankooda, dalkooda, dadkooda iyo diintoodaba, waxay yihiin ciidan leh heel sare oo dagaal. waxa ayna ku hubaysan yihiin qoryaha darandooriga u dhaca, qoryaasha loo yaqaano boobayaasha ee fudud iyo weliba bambooyinka gacanta laga tuuro. waxaana intaasi u dheer qalabka casriga ah ee isgaarsiinta iyo weliba gaadiidka dheereeya oo ay adeegsadaan. ciidankan booliska gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalidu waxay yihiin dhalinyaro naftooda u hurtay ilaalinta deegaanka Soomaalida, waana ciidan dhiigiisa iyo lafihiisaba u horay amniga deegaanka. waxa ayna ka midho dhaliyeen waajibaadkii loo aasaasay, taasoo ay guulo lagu diirsado shacabka deegaanka Soomaalidu ku diirsadeen ay ka soo hooyeen dagaaladii ay la galeen kooxda UBO ee nabadiidka ah. haddaba isla sanadkan 2003 ee aynu soo dhaafnay ayaa waxaa iyagana xaflad xidhitaana loo sameeyey dacfadii lixaad ee ciidanka booliska gaarka ah oo markaasi iyagana u tababarkoodii u dhammaaday. ciidankan booliska gaarka ah oo loo sameeyey xaflad si heer sare ah loo soo qabanqaabiyey waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan, waxaana ka mid ahaa oo hogaaminaya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar, hogaanka nabadgelyada iyo cadaaladda ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdilaahi Yuusuf Weerar, iyo weliba mas-uuliyiin heer deegaan ah. xafladan xidhitaanka tababarkan ciidanka booliska gaarka ee dacfadii lixaad waxaa isaguna khudbad gaaban ka soo jeediyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar. ciidanka booliska ee difacadii lixaad waxay ka dhigan tahay hadda goor waxaa sii jiray 5 difaacadood ama 5 ciidan oo ka tababartay dugsiga jinacsani iyo kan garabcaas. marka waxaan leeyahay nidaam iyo wada ay mareen ayaa jira. waxay sameeyeen in ay ka tagaan magac iyo sumcad guri la galo oo loo yaqaan guriga ciidanka booliska ama sumcad meel taala ayay sameeyeen raggaas. sidoo kalena hogaanka nabadgelyada iyo maamulka cadaaladda ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdilaahi Yuusuf Weerar ayaa isaguna hadal dardaaran ah ka soo jeediyay isla xafladan. ciidankan booliska gaarka oo qaatay tababar heer sare ah waxa ay qaateen tababarro ay ka mid yihiin tabta iyo xeeladaha dagaalka, difaaca iyo weerarka cadowga, dabagalka iyo fashilidda cadowga iyo ka hortagga iyo ka dabatagga kooxaha cadowga amaba kooxaha nabadiidka ah, sahaminta iyo helidda sirta nabadiidka. ciidankan booliska gaarka ah oo naftooda u horay waxa ay goob kasta oo ay kooxaha nabadiidka UBO iskaga hor yimaadaan ama ay ku dagaalamaanba ay ka soo hooyaan guulo lagu dirsan karo. ciidanka booliska gaarka waxa ay quus ku rideen kooxda taagta yar ee nabadiidka ee carqaladaha ku ahaa horumarka nabadgelyada u soo hooyatay deegaanka Soomaalida. waxayna kooxaha nabadiidka ee UBO ay ka dhigeen kuwo la burburiyay isla markaasina la baabiyay, kuwaas oo markooda hore iyagu caadeysan jiray inay burburiyaan meelaha adeegyada bulshadu ay leedahay sida xarumaha caafimaadka iyo walaal-dhismayaasha jidadka. waxaana cashar lama ilaawaan u dhigeen kooxda UBO geesiyaasha. haddaba ciidanka booliska gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida oo ballan ku qaaday inay deegaanka Soomaalida ka tirtiraan kooxda UBO iyo wixii ay cagaha ku wadataba. haddaba sanadkan tagay geesiyaasha naftood hurayaasha booliska gaarkii waxa ay soo hooyeen guul ballaaran, waxaana ka mid ahaa markii ay gacanta ku soo dhigeen 2 wariye oo markaasi kooxda UBO soo majaar habaabisay, kuwaasoo ciidanka booliska gaarkii ay gacanta ku dhigeen. wariyaashan oo ha kuwa ajnabi ah waxa ay noqdeen kuwa ku dambeeya gacanta geesiyaasha ciidanka booliska gaarka ah. waxaan hambalyeynaya halyeeyadana yugaye hantiyay kushii nabadda. hajiro anayu boolisku hajiro waxaan hambalyeynaya halyeeyadana yugaye hantiyay kushii nabadda. hajiro anayu boolisku hajiro waxaan hambalyeynaya halyeeyadana yugaye hantiyay kushii nabadda.
sidoo kale sanadkii tegay ee 2003 ayaa waxay dowlad deegaanka Soomaalida iyo wasaaradda beeraha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ay kala saxeexdeen heshiis ku saabsan 45 mashruuc oo ay ka sameynayso wasaaradda beeraha ee heer federaal deegaanka Soomaalida. mashaariicdaas oo ku saabsan ka faa'iideysiga kheyraadka biyaha ee dooxooyinka iyo webiyada deegaanka, iyada oo mashaariicdan kharashka ku baxayana ay daboolayso xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida. waxaana mashaariicdan loo qoondeeyay miisaaniyad dhan 1 bilyan iyo 400 oo kun oo bir. waxaana heshiiskan dhinaca xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida saxiixa qalinka ugu dugay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamuud Cumar, halka wasaaradda beeraha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya halkaasi ku saxeexay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Ato Silashi Geetahun. haddaba heshiiskaasi kadib ayaa waxaa mashaariicdan tirada badan ee dhinaca biyaha warbixin kooban ka bixiyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamuud Cumar, oo sheegay in dhibaatada ugu weyn ee deegaanka ka jirta ay tahay dhibaatada biyo la'aanta. xukuumadda deegaankuna ay u qorshaysan tahay sidii horumar ballaaran looga gaadhi lahaa dhinaca biyaha la cabo iyo biyaha waraabka iyo weliba xoolaha. heshiiskan waxa weeyaan muhiimadiisa ugu weyn waa heshiis ku saabsan dhanka horumarka waraabka ama biyaha. heshiiskaas waxa weeyaan mid ay wada galeen wasaaradda federaalka beeraha Itoobiya iyo dowladda deegaanka Soomaalida. heshiiskaas oo xoogga saaraya dhanka ka faa'iideysiga ama mashaariicda waaweyn ee dhanka biyaha. sida loo ogsoon yahay dhibaatada ugu weyn ee haysta waa dhanka biyaha. dhanka biyaha deegaankana dhibaatada ugu weyn ee jirta waa biyaha. marka biyaha oo saddexa biyihii nadiifta la cabiyay iyo kii waraabka iyo kii kale xoolaha. mashaariicdan laga fulin doono gobolada ay ka mid yihiin Shiniile, Dhagaxbuur, Liibaan, Afdheer, iyada oo uu qorshuuna yahay in lagu dhammaystiro sanadka 2004. kadibna waxay mas'uuliyiintan iyo khabiiro dhinaca biyaha ah oo isugu jiray heer federaal iyo heer deegaan, oo ay ka mid ahaayeen la taliyaha ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ahna gudoomiyaha guddiga ka faa'iideysiga webiyada iyo dooxooyinka Ato Shafaraw Jaarso, iyo madaxa xafiiska horumarinta dooxooyinka ee dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Wahaab, ay indhaindhayn ku soo sameeyeen goobo ka mid ah deegaanka oo ay ka mid yihiin Xarshin, Marsin iyo Yoocaale. waxaana la rajaynayaa in mashaariicdan ay ka faa'iideysan doonaan dad gaadhaya 1 milyan iyo 200 oo kun oo qof. haddaba sanadkii 2003 ayaa waxay xukuumadda deegaanku ku tallaabsatay in dib u dejin loo sameeyo 10,000 kun oo qof oo ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee ay dhibaatadu ka soo gaadhay abaaraha, kuwaas oo dib u dejin loogu sameeyey gobolada ay webiyadu maraan oo uu ka mid yahay gobolka Goday, Afdheer iyo weliba Liibaan. waxaana dadka loo sameeyey mashaariicyo dhinaca beeraha ah iyo matoorada biyaha soo jiida si ay uga faa'iideystaan dhinaca wax soo saarka beeraha. sidoo kalena xukuumadda deegaanka Soomaalida waxaa dadkani dib u dejinta loo sameeyey loo dhisay goobaha adeegyada bulshada ee sida caafimaadka iyo waxbarashada. sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyay wallaga helaayo hadhow lagu xasuusta. daawadayaal, weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena aan ku eegaynay dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa sanadkii 2003 ee tegey. waxaa daawadayaal sidoo kale sanadkii 2003 magaala madaxda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ka dhacay shir cilmiyeed loogu magac daray Nabaddu waa furaha nolosha. shir cilmiyeedkaas oo ay ka soo qayb galeen culimaadudiin Soomaaliyeed oo ka kala socday 14 dal oo ku kala yaala daafaha dunida, kuwaas oo ay tiradooda kor u dhaafaysay 100 qof oo culimaadudiin ah. waxaana furitaankii shir cilmiyeedkan loogu magac daray Nabaddu waa furaha nolosha ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamuud Cumar, oo sheegay in shir cilmiyeedkani uu faa'iido weyn ugu fadhiyo bulshada ku dhaqan deegaanka sidii ay faham buuxa uga yeelan lahaayeen diinteenna suuban ee Islaamka, isaga oo mahadnaq ballaaranna u jeediyey
ururka UWSLF ee nabadda qaatay iyo weliba go'aanka geesinimada leh ay u qaateen shacabkooda darteed, isla markaana iyagu ka dambeeyay diyaarinta iyo qabanqaabadii shircilmiyeedkan oo loogu magac daray nabaddu waa furaha nolosha. sidoo kale waxaa isaguna madashaasi ka hadlay gudoomiyihii ururka UWSLF ee nabadda qaatay Sheekh Ibraahim Sheekh Maxamed Xuseen oo hadal kooban ka jeediyay